kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkan waa channelka dabagalka wararka waa 15 bisha shanaad 2019 wararkan idin hayno kuwooda ugu door korona waxa kamid ah sidee ayuu u dhacay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho halkee ayuu ka galay gaariga ku qarxay xarunta degmada warta nabadda dabagal iyo xog dheeraad ah warkeena ayaad ku daawan doontaan dood uu ka qayb gali lahaa ra'iisul wasaare Khayre oo arrimo lama filaana u baaqatay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro oo beeniyay arrin laga faafiyay intuu ku sugnaa magaalada Nairobi beesha caalamka oo la kala safatay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaan Mareykanka u tagay inaan maxkamad la tiigsado sargaal xilligii kacaanka dawladdii Maxamed Siyaad Barre isku dayay in uu Soomaaliya ugu dilo sheeko ku saabsan dacwad la yaab kugu noqon doonta oo Mareykanka ka furantay danjire isbarbar dhib ku sameeyay magaalooyinka Muqdisho iyo Tel Aviv haddaba muxuu ku arkay Muqdisho maxayse kaga duwan tahay magaalada Tel Aviv danjiraha sharaxaad ka bixin doona warkeena ayaad ku daawan doontaan IMF oo sheegtay in Soomaaliya ay ka gudubtay wajiga saddexaad ee barnaamijka deyn cafinta iyo qaybaha dambe warkeena oo ku daawan doontaan maqaal xiiso badan oo ku saabsan nabadeynta Soomaaliya ma waxay ku xiran tahay wadahadal lala galo al-shabaab intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka channelka dabagalka wararka haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir channelka adigoo subscribe saaraya kana mid noqonaya saaxiibada joogto oo hela 24 saac wararka warbixinada xogaha faallooyinka iyo dhacdooyinka aadka looga hadalhayo Soomaaliya iyo caalamkaba aan halkan ku baahino kuma hadsanid in aad nagu soo biirtay haatana warkii oo fidsan sidee ku dhacday in gaari qarxa lagu weeraro xarunta warta nabadda ugu yaraan 4 qof ayaa ku geeriyootay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo galay xarunta degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir maalintii shalay ahayd gaariga qarxa waday ayaa waxa uu xarunta degmada ka galay dhinaca waqooyi oo ah goob ay degan yihiin dad danyar ah oo ay ka dhisan yihiin guryo cawshado ka samaysan dhinaca uu baabuurka ka soo galay ayaa ah meel barxada oo aysan joogin ilaalada degmada halka jidadka kale ee soo gala degmada si weyn loo adkeeyay amaankooda maamulka degmada ayaa waxay sheegeen in halka gaariga uu ka galay degmada aysan ahayn meel ay ka filayeen laakiin ay tani cashar ka baran doonaan xogayaha degmada Wardhigley Cali Aadan Warsame ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay qaraxa maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa xarunta degmada warta nabadda ka socday raashin qaybin dadka masaakiinta ah loo sameeyay inkastoo shalay marka uu qaraxa dhacayay aysan goobta ka socan wax raashin qaybina xarunta degmada warta nabadda ayaa ku dhow aqalka madaxtooyada Soomaaliya waxaana bishii hore xaruntaasi booqday madaxweyne Farmaajo oo kula hadlay shacabka deegaanka iyadoo la xasuusto in uu xilligaas hanjabaad u jeediyay dadka rabshadaha wada bishii September ee sanadkii hore ee la soo dhaafay 2 qarax oo isku xigay ayaa waxa lagu burburiyay xarumaha degmooyinka Hodan iyo Holwadaag ee magaalada Muqdisho al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka lagu burburiyay xarumaha degmooyinka magaalada Muqdisho docda kalena waxa la baajiyay barnaamij dood ah oo ka qayb gali lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre taas oo xalay ka dhici lahayd hotel ku yaala magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Royal Plus barnaamijkan ayaa galabtii ka dhici lahaa hotelka Royal Plus waxaana toos uu kaga bixi lahaa ilaa 6 TV iyadoo ay ka qayb gali lahaayeen tobaneeyo dhalinyaro ay soo diyaariyeen koox ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya magaca barnaamijka ayaa ahaa dood furan waxaana doorka lagu saari lahaa sida dhalinyarada uga qayb qaadan karaan horumarinta dalka iyo dhismaha dawladnimada sidoo kale doorka dhalinyarada ee nabadda iyo xasiloonida ayaa looga hadli lahaa dooda baaqatay sababta ay dooda u baaqatay ayaa lagu sheegay xaaladda magaalada Muqdisho oo shalay ilaa iyo xalay aad u qasnayd kadib markii ay banaanbaxyo ka dhaceen magaalada iyo sidoo kale qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay
xarunta degmada warta nabad ee gobolka banaadir. la taliyayaasha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa saacadihii ugu dambeeyay ku dhawaaqay in dooda dib loo dhigay sababo ku aadan xaalado soo kordhay oo dhanka ammaanka ah iyo tabashada ardayda. mas-uuliyiinta ku taliyay in la baajiyo barnaamijkan ayaa u arkay in aan waqtigaasi laga hadli karin mustaqbalka dhalinyarada maadaama ay dowladda Soomaaliya ku fashilantay imtixaanka dugsiyada sare, caradii ka dhalatayna kala dul dhacday ardayda Soomaaliyeed halkii ay ahayd in dowladda ay isla xisaabtanto. dowladda Soomaaliya ayaa dhex mushaaxaysa iyo sumcad xumo ay ka dhaxashay imtixaanka dugsiyada sare ee dalka kadib markii ay keedin weysay xogta imtixaanka oo suuqyada laga helay. dhinaca kalena Cabdiraxmaan Cirro ayaa beeniyay arrin laga faafiyay inta uu ku sugnaa magaalada Nairobi. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa caasimadda Soomaaliland dib ugu laabtay kadib safar uu ugu maqnaa wadanka Kenya. gudoomiyaha Cirro oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu beeniyay warar si aad loo hadalhayay inta uu ku maqnaa dalka Kenya. Cirro ayaa waxa uu sheegay inaysan wax kulana magaalada Nairobi ku dhaxmarin safiirada dalalka Mareykanka iyo Qatar u fadhiya Kenya, balse wuxuu xaqiijiyay inuu kulan la qaatay wafdiye kala duwan oo safiirro isugu jiray. gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cirro ayaa arrimahaasi ka hadlay waxaana uu yiri warbaahinta qaarkood waxay qoreen in aan Kenya kula kulmay danjiraha dalka Qatar iyo sidoo kale danjiraha Mareykanka. warkaasi ma jiro, laakiin safiirka Qatar kama duwana kuwii aan la kulmay. wax noo diiday inaan la kulanno safiirro gaar ahina ma jiro, cidna nooma yeerin karto cidda aanu la kulmayna ayuu yiri. waxa uu intaasi ku daray gudoomiyaha waxaa weli socota ku xadgudubka iyo xariga muwaadiniinta. waxaa u dambeeyay gudoomiyihii garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani oo isna ra'yi lagu xiray. waxaa la yiri dowladdu waa la caayay, haddii ay cid caay lagu xirayo waxay ahayd in Maxamed Muuse Diiriye la soo xiro ayuu yiri gudoomiye Cirro. dacwada kalena beesha caalamka ayaa la kala safatay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. dalalka saaxiibada caalamka loogu yeero ee daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa laba garab u kala jabay, lana kala saftay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada sidaan xog ku helnay. arrintan ayaa markii ugu horeysay shaaca waxa ka qaaday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kadib markii uu ka tagay shirka fashilmay ee Garowe kuna laabtay magaalada Kismaayo. waa wax aad looga xumaado in beesha caalamka ay kala qaybsanaato isla markaana ay qayb noqoto dhibaatada haatan ka taagan dalka Soomaaliya ayuu yiri Axmed Madoobe. xog gaar ah oo helay janalka dabagalka wararka ayaa sheegaysa in dalalka Yurub ay la safan yihiin maamul goboleedyada halka dowladda Mareykanka ay la safan tahay dowladda Soomaaliya. dalalka ayaa sidoo kale horay ugu kala qaybsamay arrimaha Soomaaliya kadib markii ay dowladda ceyrisay ergeygii qaramada midoobe, markaas oo wadamada Yurub ay aad uga caroodeen halka Mareykanka uu taageero u muujiyay dowladda Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haysta dhalashada Mareykanka, waxaana uu taageer weyn ka haystaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto. waxaan Mareykanka u tagay in aan maxkamad la tiigsado sargaal xilligii kacaanka Maxamed Siyaad Barre isku dayay in uu Soomaaliya igu dilo. tacdiyada ka dhanka bini'aadanimada ee ka dhacay Soomaaliya intii ay jirtay dowladii kacaanka ee 21 sano uu ka talinayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxay isbuucan hareyn doonaan maxkamad ku taala gobolka Virginia ee dalka Mareykanka kadib markii uu ugu dambeyn nin Soomaaliya ku guuleystay inuu dib ula xisaabtamo sargaal military ahaa oo uu ku eedeynayo inuu isku dayay in uu dilo. dacwadda la xiriirta kiiskan oo in muddo soo jiitamaysa ayaa si rasmi ah uga furmaysa maxkamadda sida ay shaaciyeen wargeysyada The Guardian iyo New York Times oo ka soo kala baxa dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka. Farxaan Warfaa ayaa markii ugu dambeysay ee uu ninka eedeysanaha oo ah la kulmay oo lagu magacaabay Yuusuf Cabdi Cali waxay ahayd bishii Maajo ee sanadkii 1998. waxa uu sheegay in markaas Cali oo ku magac dheeraa Cornel Tuke uu biskoolad ula soo baxay oo uu ku dhuftay 5 xabadood oo uusan u meeldayin kahor inta aan la toognin ayuu sheegay in jirdil loo geystay isagoo xilligaas ku sugnaa deegaanada waqooyiga Soomaaliya. Cali ayaa la sheegay in markaas uu ahaa taliyihii guutada 5aad ee militariga Soomaaliya waxaana lagu eedeeyay inuu mas'uul ka ahaa tacdiye badan oo dhacay intii u dhaxaysay sanadkii 1970 ilaa 1980 sida ku xusan warqadaha ninka dacwadda gudbiyay. xarunta cadaaladda iyo la xisaabtanka ee fadhigeedu yahay gobolka California ayaa kiiskan geysay maxkamadda si dacwadda dhageysigeeda loo gudagalo. Warfaa ayaa markaas arrintaasi la sheegayo dhacaysay waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah, haddana waa mid ka mid ah oday dhaqameedyada deegaankiisa. waxa uu Soomaaliya uga safray si uu Mareykanka u joogo 5 maalmood oo uu socdo dhageysiga dacwadda. waxa uu Warfaa raadinayaa in uu cadaalad u helo jirdil
uu ku andacoonayay in loo geystay iyo iskuday dil oo ka baxsan sharciga. hay-adda kiiskan gadaal ka riixaysa oo magaceeda loo soo gaabiyo CJA ayay guul u tahay in maxkamadda ay aqbasho dhageysiga dacwadda, iyadoo markii ugu horeysay dadaalka ku saabsan arrintan bilowday sanadkii 2004. waxay kasoo gudubtay qodobo sharci la xiriira oo horseedi karay in kiiska gebi ahaan uu burburo. sanadkii 2016 ayay maxkamadda racfaanka ee fadhigeedu yahay Virginia meesha ka saartay qodobo dhinaca sharciga oo hor istaagayay in cali la maxkamadeeyo. waxay markii hore caqabad ka taagneyd sida Mareykanka gudihiisa loogu qaadi kara dacwad ay eedeynteeda ka dhacday meel ka baxsan wadankaas. arrintaas ayaana dacwadda dib u dhigtay muddo 15 sano ah. dhinaca kalena IMF-ta ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka gudubtay wejiga saddexaad ee barnaamijka deyn cafinta. war qoraal ah oo kasoo baxay hay-adda lacagta adduunka ayaa lagu sheegay in hay-adda iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay isku afgarteen ka gudbidda wejiga saddexaad barnaamijka deyn cafinta loona gudbay qaybta afraad oo soconaysa bishan May ilaa iyo bisha July ee sanadka soo aadan ee 2020. hay-adda lacagta waxay u soo jeedisay madaxda Soomaaliya joogteynta wadadii guuleysatay ee looga gudbay wajiyadii hore ee barnaamijka kooxda la socodka ee SNB. qoraalkan waxa uu ka dambeeyay kulan ka dhacay Addis Ababa 24 bishii Abriil ilaa 2 bishii May kaasoo u dhaxeeyay madaxda wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo koox ka socotay IMF oo uu hogaaminayay Ellison Holland. waxaana isla meel dhigeen ka gudbidda wejigan. kulankan waxaa kale oo ka qayb galay wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya. wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ayaa intii wada hadallada wejiga saddexaad ee barnaamijka deyn cafinta socdeen waxa uu la kulmay madaxa hay-adda IMF si uu uga dhaadhiciyay in Soomaaliya deymaha lagu leeyahay laga cafiyo. waxa kale oo la kulmay wadamada iyo hay-adaha kale ee Soomaaliya ku leh deymaha. Ellison Holland gudoomiyaha kooxda wada hadalka ee IMF ayaa madaxda dowladda waxay uga mahad celisay sida ay uga go'an tahay hirgelinta shuruudaha barnaamijka deyn cafinta iyo sida xoogan ay ugu dhiiran yihiin. hay-adda lacagta adduunka ayaa mar kale bogaadisay kororka dakhliga soo gala dowladda federaalka iyo dadaalka hagaajinta maamulka maaliyadda. Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda ayaa war qoraal uu soo saaray waxa uu ku soo dhaweeyay warbixinta hay-adda lacagta adduunka ay soo saartay ee looga gudbay wejiga saddexaad ee barnaamijka deyn cafinta. dhinaca kalena dowladda UK ee danjiraheeda hore ee Soomaaliya u magacaawday in uu noqdo danjiraha cusub ee u qaabilsan Israa'iil. Neil Wigan oo ka hadlayay magacaabistiisa kadib markii uu tagay caasimadda maamulka Israa'iil ee Tel Aviv ayaa waxa uu sheegay in Muqdisho iyo Tel Aviv uu u dhaxeeyo farqi weyn oo dhinaca ammaanka ah. muddadii aan ahaa safiirka UK ee Soomaaliya waqtigeyga ugu badan waxaan ku qaadanayaa xafiiskayga sababtoo ah ammaanka aad ayuu halis u ahaa lamana socon karin ayuu yiri Neil Wigan. waxa kale oo uu sheegay in Tel Aviv oo 2002 ilaa 2006 ka ahaa madaxa siyaasadda ee safaaradda Ingiriiska uu ku faraxsan yahay inuu dib ugu soo laabto. waxa uu danjiraha UK ee Soomaaliya ahaa intii u dhaxaysay 2013 ilaa 2015 waxaana isaga oo dhoola cadeynaya uu yiri jagooyinka Soomaaliya iyo Israa'iil wax farqiya uma dhaxeeyaan. Neil Wigan ayaa rajeeyay in nolosha Tel Aviv aysan la mid noqon tii Muqdisho oo uu sheegay in uu ku shaqeynayay xaalad amni sugid ah oo aad u adag. halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa channelka dabagalka wararka. haatanna maqaal ku saabsan nabadeynta Soomaaliya ma waxay ku xiran tahay wada hadal in la gala al-shabaab. wargeys lagu magacaabo War on Rogers ayaa qoray maqaal uu ku eegayo suurtagalnimada in al-shabaab lala gala heshiis nabadeed. waxaana uu soo xigtay Jason Hattinki oo dhawaan la shaqeeyay howlgalka militariga Mareykanka ee Soomaaliya. maqaalka wargeyska ayaa mid ka mid ah ciwaanadiisa lagaga dhigay soo afjarida dagaalka sokeeye ayaa ka saameyn badan la dagaalanka argagixisada. hogaamiyaasha waxay dagaalka ka dhaxlaan 3 arrimood oo kala ah in guul kama dambeys ah laga gaaro dagaalka, in laga gaaro heshiis nabadeed ama in dagaalku uu sii socdo. tan iyo markii uu dhacay weerarkii 11 September ee laga geystay Mareykanka waxaa hoos u dhacay wada hadallada nabadeed si dhagaha looga fureysto ururada lagu tiriyay in ay yihiin argagixiso. waxaa la sheegay in al-shabaab ay dhaqaale xoogan ka helaan canshuuraha ay ka qaadaan ganacsatada gudaha, waana urur adkaysi badan marka loo fiiriyo khasaaraha ka soo gaaray weerarada uu Mareykanka ka wado Soomaaliya. in la soo afjaro dagaalka Soomaaliya waxay ku xiran tahay heshiis nabadeed lala gala al-shabaab, balse weerarada ka dhanka al-shabaab waxay horseedi karaan khasaaro siday u arkaan khubaro u dhunduleela arrimaha Soomaaliya. waxaa suurtagal ah inaan anigu ahay qofkii ugu horreeyay ee soo jeediyo in wada hadal lala yeesho al-shabaab, balse daraasad la sameeyay ayaa muujinaysa in taageerada ku saabsan arrintaasi ay xitaa ka dhex jirto shacabka Soomaaliyeed.
waxaana fikradaas looga hadlay kulamo siyaasadeed oo ka dhacay muqdisho ay ka qayb galeen aqoon-yahano ayuu yiri Jason Hatinki oo ah ninka wargeyska uu soo xigtay. arrinta aan lagu soo wada hadal qaadin kulanka waxay ahayd qaabkii loo mari lahaa wada hadallada. inkastoo al-shabaab dhibaato kala kulantay saraakiisha sarsare ee dagaalamayaasha ka goostay, haddana kooxdu si furan uma ogola in ay wada xaajood gasho, waxaana laga yaabaa in gebi ahaanba ay ku gacan seeraan isku dayga noocaas ah. hase ahaatee sii joogitaanka ciidamada amisom iyo cadaadiska militariga Mareykanka ee sii xoogeysanaya ayaa bedeli kara fikirka al-shabaab ee ku aadan miiska wada hadalka in la isugu yimaado. al-shabaab weligood looguma yaboohin in haddii ay dagaalka soo afjaraan jagooyin laga siin doono dowladda, waxaanay kooxdu wajahaysaa xaalado adag iyadoo laga dilay hogaamiyayaal sarsare oo lafdhabar u ahaa. welina waxaa macquul ah in ay soo dhoweeyaan natiijooyin noocaas ah. dowladda Soomaaliya ee ururada bulshada rayidka ayaa laga doonayaa in ay go'aan ka gaaraan sidii wada xaajood loola geli lahaa al-shabaab si loo soo afjaro dhibaatooyinka dagaalada sokeeye ay geysteen iyo in la joojiyo dagaalada Soomaaliya. waxaa loo baahan yahay in la gaaro heshiis nabadeed si shabaab kaalin weyn mustaqbalka looga siiyo dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii la soo dhaafay xabsiga dhigtay afhayeenkii hore al-shabaab Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur xilli uu ka mid ahaa musharaxiin ka qayb galaysay doorashadii maamul goboleedka Koonfur Galbeed. xiritaanka Robow kadib waxaa hadda meesha ka baxday kalsoonida ay ku qabaan dowladda Soomaaliya hogaamiyayaal ka tirsan al-shabaab oo hadda damacsan inay ka goostaan ururkaasi. waxay arrintan u muuqataa dowladda Soomaaliya in ay muujisay in hogaamiyaashii hore uga tirsan al-shabaab aanan loo ogolayn inay ka qayb galaan siyaasadda dalka. guud ahaan war wixii dal iyo daafaca caalamka naga soo gaaray waad ka daawanayseen channelka dabagalka wararka waa naga inta. haddii aad nagu cusub tahay kusoo biir channelka adigoo subscribe saaraya kana mid noqo saaxiibada joogtada u hela wararka halkan aan ku baahino. ku mahadsanid in aad nagu soo biirtay.